Caruure, salaamu calaykum. Halkan waa suuqii. Inta aan la gaadhin maalinka ciida, Maxamed Yare awowgii ayuu soo raacay si uu ula soo iibiyo wankii udixiyada. Maxamed Yare wuu faraxsan yahay. Awowgii iyo isagu waxay imaadeen suuqii xoolaha nool lagu kala iibinayay. Waxay rabaan inay ka iibsadaan wankaas oo ay qali doonaan maalinka ciida. Caruurey, wankii way soo iibsadeen. Gaadhi ayay soo saarteen. Jidkii ayay la soo mareen iyagoo raba inay gurigii tagaan. Maxamed Yare awowgii wuxuu ku yidhi, "Awow, waan gaajoonayaaye, ka waran markaynu guriga hadda tagno haddaynu qalanno wanka?" Awowgiina wuxuu ku yidhi, "May awowo, hadda lama qalaayo. Waxa la qali doonaa marka ciida la gaadho inshaa Allah." Maxamed Yarena awowgii wuxuu weydiiyey, "Waa maxay sababta loola sugaayo wanka maalinka ciida in la qalo?" Awowgiina wuxuu ku yidhi, "Markaynu guriga tagno anaa kaaga sheekayn doonaa sababta loo sugaayo maalinka ciida." Waa Maxamed Yare. Wankii ayuu siinayaa cunto iyo biyo. Awowgiina fadhiga ayuu fadhiistay. Maxamed Yare si uu ugu imaado ugana sheekeeyo qisada ka dambaysa wanka maalinka ciida in la qalo. Maxamed Yarena wuu u yimi awowgii waxaanu ku yidhi, "Awowo, iiga sheekee sheekadii ku saabsaneed wanka udixiyada." Awowgii isagoo u sheegayo Maxamed Yare wuxuu yidhi, "Wiilkaygii Maxamed Yare i dhageyso. Maalinka ciida markay cadceedu soo baxdo, muslimiinta oo dhan waxay u baxaan inay soo tukadaan salaada ciida iyagoo isku hambalyeynaya, Ilaahayna ka baryaya inuu ka aqbalo acmaasha wanaagsan ee ay sameeyeen. Markay salaadu dhammaato, khudbadda sheekhu soo jeedinayo ayaa la dhageystaa ilaa uu ka dhammeeyo. Kadibna muslimiintu waxay tagaan guryahoodii si ay u qalaan udixiyadii ay soo iibiyeen iyagoo takbiirta ciidana ku calcalinaya. Qofka udixiyeysanayana neefka udixiyada 3 qaybood ayuu u qaybiyaa. Qayb wuxuu siiyaa masaakiinta, qaybna wuxuu u hadiyeeyaa jaarkiisa, asxaabtiisa iyo ehelkiisa. Qaybta 3aadna isaga ayaa cuna oo gurigiisa ayuu ku karsadaa. Caruurey, Maxamed Yare wuu fahmay awowgii siduu ugu sheegay, laakiin su'aal ayuu weydiiyey. Wuxuu yidhi, "Awowo, maxay tahay sababta loo qalaayo neefka?" Awowgii Maxamed Yare wuxuu ku yidhi, "Maxamedow, su'aal fiican ayaad i weydiisay. Fariid ayaa tahay awowo. Nebi Ibraahim calayhi salaam wuxuu Ilaahay siiyey wiil la yidhaahdo Ismaaciil. Isaguna waa nebi Ismaaciil calayhi salaam. Nebi Ibraahim wuxuu ku riyooday isagoo wiilkiisii Ismaaciil gowracaya. Ibraahim wuxuu u tegay wiilkiisii Ismaaciil waxaanu ku yidhi, "Wiilkaygiyow, waxaan kugu arkay riyo anoo ku gowracaya. Maxay kula tahay?" Caruurey, Ismaaciil wuu gartay inay tahay imtixaan aabbihii la imtixaamayo, laakiin isagoo geesi ah wuxuu yidhi, "Aabbow, samee wuxuu Alle ku amray. Waxaan noqon doonaa inshaa Allah mid sabra." Ibraahim iyo Ismaaciil waxay tegeen meel bannaan ah isagoo raba inuu riyadii soo fuliyo oo wiilkiisa soo gowraco. Ibraahim wuxuu maqlay dhawaaq cirka ka imanaya. Dhawaaqaasoo ah, "Ibraahimow, waad ka run sheegtay riyadii. Dadka wanaagsanna waan abaalmarinaa." Allah ayaa samada uga soo dejiyey wan weyn oo uu ku beddelo Ismaaciil. Ibraahimna wankii ayuu qalay. Ilaahayna wuu u mahad celiyey. Ilaahay wuxuu arkay iimaanka Ibraahim iyo samirka Ismaaciil wuxuuna u beddelay imtixaankii gowraca wanka. Laga soo bilaabo maalinka caruurey, muslimiinta caalamka oo dhan waxay gowracaan xoolo maalinta Ciidul Adxaa si ay u xasuustaan qisadan cajiibka ah.